guddoomiyihii hore golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif maanta ma tagin wuxuu tagay maalintii taladiisii uu soo jeediyay uu ku joojinay dhiigga ku qobanay Laascaanood loo joojin waayay ayuu ka tagay Soomaaliland saan u arko waxay naga maqan Cabdirasaaq Khaliif oo nuga sheekay Cabdirasaaq Khaliif meeday Laascaanood iyo gobolkii Sool halka uu maray yaan isweydiinayna xagga ay mareen shacabkii Laascaanood halka ay ku maqan yihiin Cabdirasaaq wuxuu matalayay shacab buu matalayay representative buu ahaa dad buu wakiil ka ahaa أنا waxaan isweydiinayaa dadkii halka ay mareen iyo cidda mas'uuliyadda qaadi doonta dalkii iyo dadkii is haystay ee Somaliland ee gobolkii Sool dadkii ku noolaa xagga ay ku maqan yihiin ayuu Cabdirasaaqna tagay kama walwalsani tagitaanka Cabdirasaaq iyo shacabkaas waxaan ka walwalsanahay Somaliland inta soo hadhay mas'uuliyaddaas inta soo hadhay in la isku hayo Somaliland inta soo hadhay in la isku hayo mas'uuliyadda cidii garan lahayd mas'uuliyaddaas cidii garan lahayd baan isweydiinayaa in badan baan Somaliland ka dignay oo laga taliyay oo taladeeda la soo jeediyay walise wadadii waxay socotaa ay mugdiga ahayd ee qodxiyaha badan lahayd waxaan arkaynin awoodii la isku bedelayay ee qarankani uu ku socday ee doorashooyinka ahayd in laga leexday oo madaxweynaha talada ayaa uu ka leexday waxaa muuqata in fahanka siyaasadeed iyo hogaamineed ba uu maanta liito ee Somaliland waxaa liita maanta dhaqaalaheennii waxaa liita maanta oo ayaan darro ah sumcaddii aan ku lahayn adduunyada inuu dhaawac soo gaadhay Somaliland waxay ahayd dal yar oo degan oo adduunyada ixtiraaf ka sugaya dal degan bay ahayd oo nabdoon oo dimuqraadiya oo doorashadiisa qabsada oo shacabku ay hanti u ahayd nabadda iyo deganaanshiyo maanta dhinac walba walwal baa ka jira walwal badan baa laga qabaa shacabku aad bay walwalsan yihiin laakiin mas'uuliyaddii cidda garan lahayd taladaas ayaa loo baahan yahay inaan ka fikirro inta soo hadhay madaxweyne dalku wuxuu ku badbaadayaa doorashada madaxtooyada inaad qabato oo waddanka la badbaadiyo inta soo hadhay intay naga maqana la doono taasoo maanta dalkeenu baahi weyn u qabaa danyartu maanta waxay la daaladhacayso oo inoo muuqataa dagaalka Laascaanood iyo deganaansho la'aanta ina haysatay dhibaatooyinka ay dalkeenii geysiisay waynu arkaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeena inuu ka dhigo dal barwaaqa inta waxaan ku dari waxa ku xidhan magaalada Boorama in bil ka badan dhalinyar fara badan oo tiro ah ayaa jeelka Boorama ku jirta oo wali ilaa imika maxkamad ku dhacdayna ayna jirin waxa loo haysto wali ma garanaya cidda haysata oran maayo dhalinyarta hal sii daayo sababtoo ah waxay ku xidhan yihiinba ma fahmin wariyayaal baa jira dad rayigooda u xidhan baa jira oo maxkamad ila geyn wali dadkaasi waxay xaq u leeyihiin haddii dambi leeyihiin in maxkamadaha sharciga la geeyo haddii aynan dambi lahayna xorriyadooda loo soo celiyo
waxa caado noqotay gobolkan inay saarnaato cabburin fara badan oo dadka rayigooda loo xidho waxaan soo maleynayaa taas inay soo dhamaanayso waxa gobolka ku badan dad isxilqaamay inay dadka xidhaan oo xilqaan lagu xidho waxaan ugu baaqayaa hay'adaha sharcigu gobolkan waddanka Soomaaliland buu ka tirsan yahay hay'adaha sharciga ah in sideeda loo ixtiraamo oo loo daayo haddii ay dadka ay dambi leeyihiin sharciga lagu ixtiraamo oo loo daayo hadday dambi lahayna xorriyadooda ay helaan